sagaal haween baan guursaday sagaalkii ciyaal baa igala maqan yihiin waxaana joogaa gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere waxa garabkayga fadhiya aadan xasan cali oo ku nool degmada Baardheere ee gobolka Gedo aadan waxa jirtay sheeko oo shalay baraha bulshada qabsatay iyo xalay ku jirtay oo ah in gabar fanaanada ah oo la yiraahdo Nadiir Nuurus Nadiir Maxamed Ciga inaad tiri adeer waa dhalay arintii baraha bulshada qabsatay dadka Soomaalida ah waa ka firceliyeen marka sheekada waxaad nooga warantaa Nadiiro horta adeer Nadiiro waa gabar hadda markii la sheegay iyo san xaaladda u dirsay iyo markii hore qalbigayga wuxuu ku taagnaanana hadda xoolo dad ay ka maqan yihiin waxa la yiraahdaa dhul dad ka maqan yihiin oo waxa way iyo dhul wax la dhalay iyo dhul magan loo yahay Nadiiro iyo gabadha aan raadinayo aniga islaanta aan guursaday Nadiiro waxa loo sheegnaa reer dalal inay tahay oo iyada reer dalal tahay aabeed reer dalal uu yahay aniga ana kullu xaal war ii dhamaantiis islaanta aan raadinayo waa naag isaaqa waa naag ciid gala marka dadkeeda waa la yaqaanaa Muqdisho ayaan ku guray istaad Muqdisho telefishinka Muqdisho iyo Kowaanka Huruwa laba dhaxalkaas ku aroos Nadiiro waxa weeye waan ku qaldamay saaki 14 iyo boqolka Quraanka Kariimka ayaa raali iga noqonaysaa Quraanka 14 boqol Quraanka Kariimka ayaa raali iga noqonaysaan dhammaan inta bulshada baraha bulshada oo dhan ay raali iga noqonaysaan waayo gabadhaas inaan wax u hayaba laga yaabaa adeer waan ama abtu aan u hayba markay saatay Nadiiro waa lagu qaldamay gabadhaydana waxa weeye inta gu'aadka ay jirtay gu'aadka ay sheegay aydiid bay dharteen laantaan 7 iyo 7 bay dhalatay 31 waay sanadkaana ka waxaan salaan guud badan u celinayaa bulshada baraha bulshada meel kasta oo la joogo gabadha Nadiir Nuurus waan afiyay waana mar dambana uguma noqonayo waan ku qaldamay 14 boqolkan ha iga raadna diinka Quraanka Kariimka way adeer waa mahadsan yahay adeer wuxuu noo sheegay oo dadka Soomaaliyeedna u cadeynayna in Nadiir Nuurus oo ah gabar fanaanada Soomaaliyeed inuu adeer dhalin oo ku qaldamay daadu sheegana ah 32 sano oo gabar uu dhalay Nadiir wali 32 sano ma gaarin oo gabar aad u yar runtii daadaasna ma jirto marka adeer waxa jir dad kale oo ka maqan oo uu dhalay oo uu sheegayo laakiin Nadiir ma aha adeer waa jiraan dad kale oo ka maqan dad kale oo iga maqan waa jiraan aniga waxa iga maqan dadka waxa way 14 wiil waxa iga maqan maxaan ku dhahay iyo 8 bilood ba iga maqan gabadha aan guursaday hadda Nadiir aan ku kahaya hooyadeed waa Isaaq Xamdi Sheekh Maxamed Umar ayaa la yiraahdaa agooniman ku guursaday waa ciid gale Xamdi Sheekh Maxamed hooyadeed waxa la yiraahdaa Xaliimo Sharwac abtigeed waxa la yiraahdaa Cawaale waa reer Hargeysa markan iri walaalay hadii qabba dhacday dhibaato dhacdan xaaskayga tahay waxaan ku wada gobolka Gedo ku dhashay dalkayga iyo meeshan dadkii aan ku dhashay eheladeydan kula aaday markaan indirnaa anaa ku soo wacaya gabadhana Aamina Aadan Xasan Cali inay u bixiso ayaan ku ballan markii ay sidaa tahay markaas iyada kabtanana aniga wasaaradda gaashaandhigga ka tirsanaa difaac oo maxaan ku dhahay difaac cirka oo saddexaad daynile Muqdisho aan joogaa goobta Ciise Cabdiyaan markaa madaafiicda inoo taala marka waxa weeye dadkaas gabadhaas waxa weeye iyo gabar kale Salabaan oo iyadana maxaan ku dhahay Hiira Sheekh Cabdiraxmaan Umar la yiraahdaa Hiira Sheekh Cabdiraxmaan Umar la yiraahdaa ayadoo iga maqan tahay wiil ba igala maqan tahay soonka haddana 15 kiisi waxa iga soo baafisay Garoowe koow maaha laba maaha saddex maaha Garoowe Hiira dheer baa leeyahay Hiira Sheekh Cabdiraxmaan Umar baa la yiraahdaa waxa weeye waa Salabaan gabadhaana Xamdi Sheekh Maxamed Umar baa la yiraahdaa idana waa agoon waa ciid gale waa Isaaq ma garat horta dadkaas Muqdisho iiga maqan yihiin Muqdisho ayay ugu dambeysay waqabta Soomaaliya 32 waa laga joogaa warka hadii in sii wado labadaas ruux oo hadda aan sheegayo meeshaas horta iiga maqan yihiin Garoowe iyo islaantii gabadha dhashay waxa la igu sheegay meesha la yiraahdaa burca saddex sano iyo 4 bilood aan raadinahay jawaab wali ma hayo gabar baan soo furaa ana adeer aan u ahay yaa meeshi gabadhii aan u diray lagu guursaday wajeer oo nin Isaaq u qabo yaa ilaa 2 sano aan gabadha daba taagnaa lambarkeedan hadda waa la helayaa hadalkii ma garan adeer macaan hor dadkaas waxay iga maqan Muqdisho iga maqan yihiin markay sidaas tahay rususada 74 على سارك جبوتي
waxaa iga maqan dad kale waan kala qaadaya warka waa 70kii iyo 90kii iyo 1dii qabta Soomaaliya iyo 70kii iyo 7dii 70kii iyo 7dii way waxaa iga maqan askari dambel abqataar naanaysu waay abqataar naanaysu waay xamdi hooyadeed waxaa leeyahay xasna waa ree xasan hooyadeed laantaas waa Ismaan Maxamuud xaliima aadan baraki waa dhulbahanti naga waa labo iyo xisaabtii waa labo samaha waxaa ku xigtay xareeda Cabdullaahi Qayla Dheere waa coormale saddex Soomaa saddex oo jannagal waxaa intaas ka dheeri haddana gabar Faadimo Sheekh Cali leeyahay oo Maxamed Sawiir ah iyo Xabiibo Sheekh Ibraahim Cumar leeyahay Sheekh Ibraahim Cumar waay ayadana waxay iga maqan tahay jahada iyadoo Kenya waa meesha leeyahay jaara ka koray sabaynaale ama jaara maxaan ku yiri hormar ma ku sheegino dadkaas waa iga maqan yihiin dadkaas waa iga maqan yihiin warkii waa garatay islaan garra ah qabta aydiid baar dheeraa la joogay ninkaan kulay wadanka uu joogay baadii ahaya marka hadda askarta gaalba ka soo galay qabta aydiid waxaa iga maqan gabar garra ah ceel qaalan ku gursaday gabar baa ii dhashay gabadhii iyo wiil yaa ii dhashay wiilkii gabadha weyn wiilka hor yaa dambeeya ingiriiska aadeen dadkaas ayada gacan baan ku soo dhigalay waxa inta ka dheeri ah oo qabta Soomaaliya haddana iga maqan gabar maxaan ku dhahay macalweyna sankoray Maxamed Cabdi Yaleera dirna way la gashay laba wiil jaamacad ka baxay leeyahay sheegay adeer dadkaas iga maqan waxa weeye haddii ay maqlaan bulshada baraha bulshada Soomaaliya meel iga la joogo waxaan codsanayaa dadkaasay sidii aad igu soo baafin lahaa ama igu raadin lahaa falkeed inaad gashaan 14 boqolka Quraanka Kariimka in ku salaamaya sharaf badan baan gacmo faran baan in ku soo dhaweynaa sharaf badan baan in ku salaamaya